ku xirnow janaalka daadihi subscribe saar oo ku soo biir doqonnimadu waa garasho gaabni habacsanaan damiir iyo dareen yari fiiro la'aan go'aan xumo foojignaan la'aan iyo fulaynimo isku biiray waxay dhashaa oo ay bah wadaagaan hanyari meelxunjoognimo caado qaatannimo nac iyo quuri weyto doqonnimadu waa cudur aan lagu bogsan oo waa hore ayay buuniyaasha fayowqabka gacanta ka taagan inay dhaahin karaan waanay ku daaleen inay xal u heli karaan amaba wax uun ka qaban karaan inaysan dhaahin karin ka sokow doqonnimadu murtida Soomaaliyeed aad bay u qeexday oo looga hadlay dhinaca suugaanta tusaale heesal xiraalo u badan oo Cumar Dhuule iyo Mursal isla qaadi jireen ayaa waxa ay labadan fanaan isku dhaafsadeen hal xiraale ay Maryam Mursal weydiisay Cumar Dhuule oo ahaa cudurkii ku doorshay dadku helana aan dilin ee aan dawo yeelan ii sheeg warcelinta Cumar Dhuule ku warcelinayo waxay noqonaysaa doqonnimada weeyaan sidoo kale doqonka waxaan ku tilmaami karnaa qof uu Ilaahay dhameystiray xaq jireed iyo maskaxeed balse aan aqligiisa iyo awoodiisa jireed u adeegsan sidii habooneed ee Ilaahay faray doqonnimadu waa dhowr qaybood oo kala duwan waxaase ugu fudud mid qof kaliya ku dhacda waxaana ugu daran mid bulsho dhan kor iyo hoos ka gasha kuna baahda dad iyo dal meel wada degan doqonnimada inta ay qof ka kooban tahay waxyeeladeedu ma badna markaas ay soo butaacdo ama soo fatahdo waxay curyaamisaa dadka soo dhaweeya doqonku waa qofka aan aqoon iyo garaad badan lahayn waa nacaska aan ugu yeerna dabaalka waa seeganaha dantiisa aan aqoon gafsanaha yoolashiisa dabamaraha ku hoolan wax aan waxba ka soo galayn Soomaaliduna in badan ayay ka maamaaday doqonta iyo garaadyarideeda waxayna yiraahdaan oo halqabsi u ah doqon alle barida xeeradeeday ka aragtay doqon dib bay wax ka garataa doqon ha u gargaarin hana gargaarsan doqon Nabi Muuse habaaray doqon sokeeya maaha doqoni dabkaaba iyo kuwa kale badan intaan oo maamaahood waxa ay Soomaalidu ku qeexday habdhaqanka iyo qaab nololeedka doqonnimada waxaanay si togan uga hadashay guud ahaan sida ay u liidan tahay doqontu doqonnimadu waa dareen la ismoog yahay nacab iyo cadowna kalama taqaano doqontu nacabkeeda ma waxyeelayso ee xigtaday ku meeraysataa huriweyto iyo iscajabiska ayaa ku badan doqonta waxaa kaloo Soomaalida halqabsi u ah doqon ha u gargaarin hana gargaarsan halqabsigani waxa uu muujinayaa sida ay Soomaalidu quusta uga taagan tahay qofka doqonka ah Soomaalida oo ah bulshada hadalkeedu badan yahay waxay dareenkooda ku cabiraan mahmaah iyo halqabsiyo ay iska dhaxlaan si la mid ah taasna suugaanta qaybaheeda kala duwan ayay mahadooyinka isugu tabiyaan hadalkooduna waxa uu badnaan jiray duurxul iyo afgobaabsi waana tan keentay in suugaanteen nuxur yeelato doqonnimadu waa kala jug culus tahay oo kala dhib badan tahay waxaana ugu daran tanbaahda ee safmareenka noqota waa mid sanadahan dadkeena ku soo badanaysa dabeysha soo qaadayna aan la garanayn waa mid keentay in bulshadeenu si guracan gafka isugu raacaan isqaban waayaan iskuna fiirsadaan xumaanta waa mid gardarada inaan isugu gargaarno keentay doqonta waxa ugu liidata mid gardarada badan ee aan laga nasan waana ta Soomaalida ku badan maanta eekooyinka ku saabsan doqonnimada waxa ugu maad badan nin boqor ahaa boqorkaasi waxa uu ahaa nin bulshada uu hoggaanka u hayo aad u dhibaateeyo xoogna ku maquuniya ma aha nin aqli iyo garasho arrimaha ku maareeya balse waxa uu ahaa nin awood adeegsiga aad ugu dambeeya bulshaduna way garwaaqsadeen xukun jaceylkiisa iyo doqonnimadiisa rag ka mid ah ragga la shaqeeya ayaa odaygu u fikiray waxayna ka dhaadhiciyeen si uu awoodiisa u muujiyo una dareensiiyo shacabkiisa in cidka awood sarreysa aysan jirin inuu maalin cad sanab ay dadku jeclaayeen meel bulshadu isugu timid ku kaadso haddii uu sidaas sameeyana waxaa dhici doonta in asaga bulshadu si weyn u jeclaan doonto ninkan doqon buu ahaayay arrinkii wuu sameeyay wuuna ku dhaqaaqay waxa uuna isugu yeeray bulshadii sidii kaaliyaashiisu fureenna wuu sameeyay balaayoso waxay ka dhacday markuu bilaabay in uu sanabkii ku kaadso dadkii ku hareereysnaa ciidankiisu way ka celin waayeen halkii ayaana lagu dilay doqonkaasi waxa uu garan waayay in aaminaadu wax walba ka awood badan tahay waxa uuna garan waayay in bulshada loo tixgeliyo waxa ay jeceshahay doqonnimadu waa mid saameynteedu keento in bulsho dhami u riiqanto oo ay ka soo kaban weydo dalow iyo meel shalow ah oo doqoni ku riday haddii aad doqon hurmuud ka dhigto waa geerida diraca iyo godgalka dadweynaha maamaha Soomaaliyeed ayaa tiraahda geel duqdiisii durdurisay arrinkaasna maxaad moodi haddii bulshada iyo dadweynuhu iska hormariyaan oo door bidaan nilnijidka iyo doqonka hubaal in doqonkuna siduu uu doono yeelayo hogaamiyuhu cirka kama soo dhacayo ee waxa uu ka soo baxaa bulshada haddii bulshadu bulsho wacan tahay
hogaamiye waxtar leh ayay dooranayaan, haddii kalese mid dumiya oo doqon ah. Waana sida annagana haysata maanta. Ku xirnow subscribe saar oo ku soo biir.